waxaan ku wadaa fariin aad u qurux badan. waxaan kaaga wadaa qarnigan hadda joogna hablaha joogo iyo sida ragga ay u xiiseeyaan iyo waxyaabaha ay ku qiimeeyaan. kulanka koowaad gabadhu waxa ay qiimeysaa ninka wajigiisa iyo aragtidiisa. haddii wajigaadu aad u qurux badan yahay, hubaali waxaa ah in gabadhaas ay kula sii socon doonto. inta ay kula socoto dhowr su'aalood ayay isweydiinaysaa. su'aalahaas mid ka mid ah qalbigeeda haddii uu soo galo oo aad soo jiidatana, waxaa hubaal ah in gabadhaas aad ay kuu jeclaan doonto, weligeedna ay kaa sheekay doonto. haddaad u qalmin, waxa ay samayn doontaa in si cad ay kaaga aamusto ayada oo wax jawaab ah aan ku siin. 2. jirka oo dhisan waa qayb ka mid ah waxyaabaha dumarka ee aad ku xiiseeyaan. dumarka xilliga haasaawaha ama xiriirka ay sameynayaan waxa ay raadiyaan nin jir ahaan dhisan, aadna u qurux badan. waxa ay sidoo kale dumarka jecel yihiin nin dheer ayay jecel yihiin, gaar ahaanna sidoo kale laf leh ayay sidoo kale aad u jecel yihiin. 3. labisku waa qayb ka mid ah waxyaabaha dumarka ay aad u jecel yihiin, waxaana la sheegaa 99% dumarku inay yihiin kuwa aad u labis badan. waxa ay sidoo kale jecel yihiin qofka nolosha ay la wadaagayaanna sidoo kale inuu yahay qof labis badan. haddii aad labis badan tahay, hubaal waa ay ku jeceshahay gabadha. haddaadan labis badneen, ha isku dayin in gabar aad jeclaato, waddo cilaah ayayna kaaga dhaqaaqi doontaa. 3. furfurnaantu waxa ay keentaa guul, waxayna udub dhaxaad u tahay jacaylka. jacayl aan furfurnaan lahaynna waxa uu yahay aragti dheer aanan meel gaareenin. waxa ay gabadhu aad u jeceshahay ninku mar walba inuu u sheekeeyo, mar walbana waxyaabaha qosolka leh uu ugu sheekeeyo. haddii aad furfuran tahay, hubaali waxa ah jacaylkiina inuu guulaysan doono. 5. gabdhuhu waxay aad u jecel yihiin ragga mar walba ka qosol siiyo, sheekooyinka qosolka lehna ugu sheekeeyo, noloshana wax badan ka baro. jacaylku hadduusan qosol lahayn waxba ma taraayo. gabdhuhu waxaa la sheegaa in 10 daqiiqo aysan aamusi karin. haddii 10 daqiiqo aamusnaadaan kadibna sheeko ay bilaabayaan. hore ayaana loo dhahay, dumarna waa sheeko, ragna waa shaax. haddii marka waxaa loo baahan yahay dumarku in mar walba aad u sheekaysid si ay kuu jeclaadaan. waxaa ka daawanaysiin barta YouTube-ka ku leenahay Socdaal 24. haddaad jeceshahay muuqaaladan oo kale inaan soo badino, saaxiibna la noqo. waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah Mahad Abuukar Maxamed Mahad Socdaal.